السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. markuu ugu horeyso asxaabta kusoo dhawaada asma xilwa channel. asxaabta soo jeedin markuu ugu horeyso, as you can see waxaan karnaynaa lokuma dessert. waxaa waaye Turkish dessert waaye. soo jeedin caanihi iyo digsiga ku shubay. waxaan ku shubayaa lowski, soo taqaanin nutska, ground nuts kan powder ka dhige, iyo koobkii sokorta, iyo kadibna cornflour warangada saa loo yaqaano, and then vanillada lagu darayaa. So asxaabta inta videoga la sii wadin, don't forget to subscribe, like, share, and comment ka iloobina. Welcome back to a new video. soo waragtin dabkaan saarne, dabka waa u yar gaabsiinaysiin suu cornflourka warangada uu kaa gubanin, and then you stir it as it boils. boilka intuu soo karkaraayo waa sii walaaqee suu tartiib usoo yar adkaado. soo asxaabta soo jeedin waa adkaade. soo dabka waa laga daminaa, waa la yar qaboojinaa, kadibna waa lagu shubaa. markaasaa diyaar waaye. kadibna fridge-ka ku tuure, hal saacad ku jira.
kadibna saa ujeedin waxaa haysanaa meeshan koob caano iyo whipping cream mix 2 packet ku jirta, hal bac ka isticmaalaynaa iyo vanilla iyo lowskaasna oo koraa laga sharaxa. caanaha inuu yar qabow ahaado waaye, fridge inaa yar gelisid waa inuu qabow ku ahaado, yani qabow inuu xumbo sameeyo, xumbo malaha cream camal sameeyo. kadibna waa isku qaraacay halahaas. markaad hal saac ku jiro kiyaan fridge geline, kadibna koraa uga daadine kanaa ku formalaase. Hope you like this video, my lovely friends. This is not the hard part. meeshuu aday badneed waatana meesha odayna waxay u tahay hana markaas saa loo laabo inuu saa loo qaadi lahaa dhibka waaye. soo asxaabta waxaa waay inuu 2 saacadood fridge ku jiro, fridge-ka ay ergaal halaysan. sorry ma ii noqonin, laakiin inshallah next time si fiican ii noqon doonaa. laakiin asxaabta ininka 2 saacadood waad maqasheen 2 hours inuu fridge ku jiro waaye. refrigerator-ka 2 hours, it has to stay in the refrigerator for 2 hours. So enjoy it, and it's already, you can serve it. Not yet. Wait, it's not yet. Groundnuts decoration, groundnuts ka qadiman dhadhanka. bayda asxaabta waa fikradeeda cusubneed oo aniga sameeyay, yani fikradan iska keensade. turkiinta badankoo ma ku karsadaan nutska, korle ay ku sharaxaan asagay pistachio fustuq loo dhaho carabta. so asxaabta, this is my new recipe, new lokuma style, asma xilwa style, lokuma style. so asxaabta haddaa ka hesheen videoga, don't forget to like, comment, share and subscribe and turn on post notifications on, so video cusub oo kasta inii soo gaaro dhaqso. so asxaabta, enjoy your meal. comment-ka igu soo qora intii karsate oo ka heshay macaankeeda.
It is so yummy. سويجه فالعمل لكن مع دنكيس إيش علا وإيش علا ليابه وحلا لياب. ومع السلامة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تشاو تشاو.